asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu casharkan iyo labada cashar ee xiga waxaan ku baran doonaa qaabdhismeedka guud ee shaxanka ama sanduuqa qorallada lagu dhex qoro iyo sida loo maareeyo gaar ahaan marka la adeegsanayo xeerarkaasi asaas waxaan gaar ahaan baran doonaa waxaa loo yaqaan margin oo ah cirifka markaa eegto sanduuqan waxa uu muujinayaa shaxanka iyo meelaha laga cabir qaato marka shaxan ama sanduuq laga hadlayo isla marhaantan laga hadlayo CSS-ka iyo sida qaabka loo dhiso website-ka waxaa laga eegaa ama laga cabir qaata waxaa loo yaqaano kor oo dhinaca sare ee sanduuqa ah midig oo dhinaca midigta sanduuqa ah hoos oo dhinaca hoose sanduuqa ah iyo bidix oo dhanka bidixda ah marka mar walba waxaa laga qiyaas qaadanayaa marka sanduuqii ama cabirkii inta loo samaynayo naqshada la rabo waxaa laga eegayaa midig waxaa laga eegayaa baan ka wadaa kor midig hoos iyo bidix si oo kala horeeyaan waa arki doonaa sababta marka margin maxay tahay margin waxaa ka soo qaadaa sanduuqan inuu yahay shaashadda kombiyuutarka ka soo qaad macnaa shaashadan guud inuu yahay kombiyuutarka kale ka soo qaad sanduuqani marka margin wuxuu noqonayaa inta qoraal ku qoran yahay inta ay ka durugsan tahay derbiga shaashadda ama derbiga qaybta ku xigta intay ka durugsan tahay marka hadda u fiirso top waxay ka durugsan tahay 68 bixel oo qurub ah midig maxay ka durugsan tahay waxay ka durugsan tahay 95 ama 95 bidix maxay ka durugsan tahay 88 hoosna 56 oo bixel ah marka u fiirso kombiyuutarkan ahaan waxa weeyaan dhankiisa midigta bidixda hoos iyo kor baa laga durkanaya qoraalka baa laga durkanaya ama sanduuqa uu qoraal ku jiro ayaa waxa laga durkanayaa geesaha shaashadda baa laga durkanaya hoos iyo dhinacyada iyo kor iyo bidix ah ma garatay aan eegno marka tusaale u soo qaadano arrintaasaan sharaxaad uga bixinno inoo soo diyaari casharkeennii waxaan rabnaa tusaale ahaan in hadda sanduuqa u fiirso wax yar un keliya ka bannaan yahay geesaha ma fahamtay laakiin waxaan rabnaa inaan kasoo durkinno oo xaggana in ka durkinno inta in kasoo durkinno inta in kasoo durkinno hoosna eeg contact meesha ku qoran tahay shaashadda xaggeeda hoose aad bay ugu dhowdahay maarata marka waxaan rabnaa inaan dhinacyada ka durkinno qoraalka inaan ka durkinaa rabnaa haddaba inoo soo diyaari faylkii CSS-ka ahaa inoo soo diyaari waxaan rabnaa boodhiga guud oo qoraalka dhan inaan dhinacyada kasoo durkinno soo maaha marka meeshan imaanaysa waxaad ku qoraysaa margin top right bottom iyo left soo ma jedid waxaa qortay marka hore waxaa loo hor qorayaa margin top maarata margin top oo aan ka dhignay macnaa top waxaa kasoo durugtaa weeye 68 right waxaa ka durugtaa 95 bottom waxaa ka durugtaa 56 leftna waxaa ka durugtaa 88 aan eegno markaan suu ku soo baxayo qoraalka imow kan fidi hadda suu yahay fiiriyaa markaan refresh naano oo ma ina save garayn kan save garan marka hore save de kan ku soo laabo marka waxaad tiraahdaa refresh eeg soo noqod ma jidaa marka maanaa korna waxaa kasoo durkay intii cabirka aan qaadanay buu kasoo durkay dhinac walba kasoo durkay soo maaratid hoosna aan eegno ka durugsan yahay eeg hoosna waa ka durkay intii hore buu kasoo durugsan yahay soo ma jeedid marka waa kanaa kor inta kasoo durkay soo maaratid midigna wuxuu kasoo durkay intan oo dhan hoosna wuxuu ka durkay intaan aragnay bidixna wuxuu kasoo durkay intan marka waa margin marka waxa weye macnaheedu waxay tahay sanduuqa qoraal ku jiro baa waxaa laga durkinayaa cirifka ama derbiga qoraalka waxaa laga durkinayaa shaashadda ama meesha markaa uu ku xigo baa laga durkinayaa ma fahanti marka tusaale ahaan marka la eego qaabka loo qoray sidaasa loo kala hormariyay macnaha waxaa laga yidhi top right bottom iyo left marka sharaxaddeen haddaan kusoo laabano waxaan yidhi kor midig hoos iyo bidix baa laga durkanaya shaashadda ma fahamti waxaa jira laakiin qaab inta la qori lahaa maanta dhan margin top inta cabir la qori lahaa margin right margin bottom margin left la qori lahaa nidaam ka sahlan baa jira nidaamka waxaa la eegaa waxaa laga bilaabaa kor u fiirso saacaddan waxaa laga bilaabayaa kor soo ma jeedid markaas waxaa laga soconayaa dhinaca saacaddu u socoto baa loo soconayaa ilaa lagu soo noqdo kor camal macnaa lagu soo noqdo dhinaca saacadda sagaalaad oo kaleeto meesha tahay marka duhur casar maqrib cishe baa inuu ku qiyaas qaata moogtahay kow duhur baa ka bilaabaysa ama 12 duhurnimo camal waa saacadda meesha ku bilaabato kor wey marka kor waxaa ku xiga markaas midig waxaa ku xiga markaas hoos waxaa ku xiga markaas bidix saasaa loo kala horumarinaya marka la qorayo waa arkaynaa ma fahanti marka la qorayo waxaa la qoraya margin waa kana marka hadda intaan kore oo kor ku qoran saana loo qori karaa marka soo ma aragtid marka u horreeya muxuu taagan yahay kor buu taagan yahay
kan labaadna muxuu taagan yahay midig buu taagan yahay kan saddexaadna muxuu taagan yahay hoos buu taagan yahay kan u dambeeyana muxuu taagan yahay bidix buu taagan yahay marka xusuusnow waa kow oo kor ah midig hoos iyo bidix saa marka la qoro waxba kama duwana sidii hore markaan eegno xeerkii hadduu ugu noqono xeerkani dib aan ugu noqono meeshaan maxaa nidhi waxa weeyaan margin la qoraya marka tobka laga baabiinaya halka inoo soo qor enter dheh kuwa iska baabiin doonaa waxaa la qorayaa margin 2 dhibcood markaas waxaa qoraysaa tirada ugu horeysa maxay tahay hadda waxaa noo qoran 68 bixel soma maxay taagan tahay kor tirada ku xigta maxay tahay waa 95 oo bixel maxay noo tahay midig tirada ku xigta maxay tahay 56 oo bixel maxay tahay waa hoos tirada ku xigta maxay tahay 88 bixel oo ah bidix marka intaas iyo intana waa isku mid inta hadda kore iyo intana waa isku mid waa kan kaas waxa uu dhigmaa kan wuxuu dhigmaa kan wuxuu dhigmaa kan kaasna wuxuu dhigmaa kaas marka waa kor midig hoos iyo bidix ma fahanti intaa marka iska baabiyo waxa uga baahnid ilaa xeerkaas ka kaafinaya moogtahay xeerkaas haddana ka kaafiyey afartii laynoo qori lahayn safe dheh ku soo noqo waxa weeyaan webkii refresh dheh soo jeed waxba iskama bedelin saan aragno inuu inta badi haddaa rabtid waxaa ka dhigtaa tira badan ka dhigtaa oo aragtid macnaha xeer ku dhigayo marka tan maxay tahay kor marka xaggee ah kor waxaa kan u horreeya soo ma halka waxaa ka dhigtaa 100 camal ka dhig soo aragtid siduu isu bedelayo safe dheh inta imow fidi refresh wuu degay soo ma jeed hoos buu degay haddaa rabtid inaad midigta wax ka bedeshid xaggee imaanaysaa midigta xaggee ah 1 2 kan labaad baa ah soo ma aragtid kan saddexaadna maxaa inoo ahaa bottom kan afraadna maxaa inoo ahaa left ama bidix marka xeerka aad baa loo isticmaalaa marka inaad xusuusnaatid sida u kala horreeyaan kan sidiisa ku celi muxuu ahaa kani 60 iyo waxaa 8 inuu ku celi haddaa rabtid safe dheh soo ma jeed kor buu soo kacaya markaad wax ka bedeshid dhinaca sare waa fahamta waan filaya qaabka marka loo soo gaabiyo xeerarka margin hadhow xeerar badan oo la adeegsan doono saas loo soo gaabin doona marka laakiin waa isku wax raacayaan habbay raacayaan haddaa halkaa fahamta hadda waad fahmaysaa dhammaan qaybaha ka dambeeya casharada soo socdaan waa fahmaysaa ma fahanti waxaad xusuusnaanaysaa qaabkan u dhignay oo ahaa saacadda maanaa saacadda waxa weeye 12 duhurnimo ka bilow oo kor bay u taagan tahay 3 galabnimo casar maqrib 6 o'clock iyo 9 waxa weeyaan isha ah ma fahanti anaa saa ku xusuusta laakiin muhiimad waxa weeye inaad xusuusnaatid kor midig hoos iyo bidix si loo qoro marka loo qorayo waxa loo yidhahdaa short form baa la dhahaa ma garatay ingiriiska lagu dhahaa laakiin almuhim waxa weeye waa qaab la soo gaabiyey oo afartaa layn oo marka la qori lahaa afarta sadar marka meesha loo qori lahaa baa hal sadar lagu soo koobay meeshii la qori lahaa margin topna ama margin rightna la qori lahaana margin ayaa la qoray ma fahanti tusaale ahaan marka la qorayo hadda marka dhinaca kor iyo hoos iyo midig iyo bidix laga dhigayo eber laga dhigayo aan ka dhigno tusaale ahaan xeerka ku soo noqo waxaa ka dhigtaa eber ka hor halkaa waxaa ka soo baxaan eegno eber marka eber ka wareegtid safe garee refresh dheh marka eber ka wareegto macnaha wuxuu ku dhigaya qoraalka derbiga uu qabsanaya soo maartid geesaha dhan buu qabsanaya marka dhinac macnaha waxba uma dhaxayaan wey kor iyo hoos iyo midig iyo bidix marka la eego waxba uma dhaxayaan wey ma fahanti derbiga ku dhawaanaya haddii marka eber la wada qoro macnaheedu waxay tahay marka eber loo qoro hal eber baa lagu soo koobi karaa macnaha gebigoodaba ma fahanti haddii macnaha tiradu isku mid tahay 4 tiro isku mid markay tahay waxaa lagu soo koobi karaa hal tiro lagu soo koobi karaa haddii hal lahayn tusaale ahaan aan ka wada dhigi lahayn 4 dhinac ka wada dhigi lahayn 100 waxaan dhigi lahayn 100 bixel baan dhigi lahayn eberka bixel lama baahna waayo eber wey moogtahay 100 markaad tiraahdo ku soo noqo pagekii refresh dheh 4 keys waa isleegiin caamil wey ma garatay marka haddii tiradu isku mid tahay 4 dhinac haddii isku mid tahay waxaa lagu soo koobaa hal tiro laakiin haddii 4 kala duwan tahay waxa 4 tiro la qoraa waa fahamtaan filaya haddaba casharkan waxaan ku soo barannay sida loo xadido fogaanta uu derbiga ku xeeran qoraalku u dirsan karo dhinacyada shaashadda kombiyuutarka
ma fahantay ama qoraal ku xiga siduu intuu u jirsanayo waxaana muhiimada inaan xusuusnaato xeerka margin oo intuu derbigu ka durugsan yahay shaashadda ah waxaa laga cabir qaadanaya mar walba kor oo ah marka kuwada la qorayo waxaa lagu xijinayaa midig waxaa lagu xijinayaa bottom oo hoosa iyo bidix oo dhinaca bidixda ah ma fahantay marka waa marka hal sadar lagu soo koobana saasaa u xusuusnaanaysa marka hal sadar lagu soo koobo bixel waa laga dhigi karaa percentage waa laga dhigi karaa laakiin inta badan waxaa la isticmaalaa bixelka oo inta qurub ah waayo waa la xadidi karaa macnaa nambarkii wuu ku xadidan yahay macnaa geesaha intuu ka xigiyo wuu kuu soo kooban yahay ma fahantay hadda waxaan nidhi 10kaas hadda muxuu dhigan yahay top buu dhigan yahay soo maartid 40kaas muxuu dhigan yahay right 10ka kale muxuu dhigan yahay hoos 40ka kale muxuu dhigan yahay bidix soo ma fahmin marka tusaale ahaan haddaan rabno in qoraalkan hadda intaas midabka gaarka leh inay ka yaraato qoraalada kaleeto macnaha oo ahaato sanduuqaas uu ka yaraado sanduuqyada kaleeto uu soo koobnaado maxaan samaynaynaa waan naqanaa xeerkii soo maaha sanduuqan muxuu ahaa magaciisu inoo raadi xijta marka fiiri waa kana soo maaha xoolaha wey kaas wey soo ma jeedid kaasaan rabnaa marka inaan ka yarayna kuwa kaleeto see dhehaynaa waxaan imaanaynaa css-ka xoolaha raadi meesha ku qoran tahay waa kana soo maaha waxaad tiraahdaa marka margin u samey margin qaabkii gaabnaa waa taqaanaa soo maaha marka kor waxaa ka durkinaysaa intaa rabtid kor maxaan ka durkinaa 20 ka durki tusaale ahaan la kor 20 bixel midig maxaan ka durkinaa tusaale waxaa midig ka durkisaa 40 hoosna 30 tusaale ahaan bidixna 40 kale anagna su ku soo baxa marka qoraalka marka intaana yarayna soo moogid macnaa qaybteeda way xeerkaas qusaya soo ma refresh deh eeg qaybii kale uu ka yaraada soo ma jeedid kuwii kale xeerkii guud baa ka dhaxeeya laakiin kan waan ka yaraynay soo ma aragtid waxaan ka dhignay cabirka kor iyo midig iyo bidix iyo hoos iyo bidix baa ka durkinay waa fahamtaan filaya marka saa u jeedo xeerkan waxa weeyaan xaqiiqadii isticmaal badan buu leeyahay waan arki doonaa markaan dhammayno labada casharo xigana waxay ku saabsan yihiin sida shaxanka loo xadidi lahaa casharka halkaa ayaa ku joojinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wabillahi towfiiq